بسم الله الرحمن الرحيم وحال يرى عرب انتي كنا بتينا بكاغور مرتا نما كانت ايغا قبيالد ka shaqeeya ayaga ciidamada siyaasadeeya ayaga dadka Soomaaliyeed ee madaxweynayaashii hore ra'iisul wasaarayaashii hore siyaasiyiintii dalkan u soo shaqeeyay humaag cadow uga dhiga dadka Soomaaliyeed oo yiraahdaan kuwan tuugo way qaranka soo horjeedaan shishay la shaqeeysta hadii shishay la shaqeeysto ayaga la shaqeeysta marka taas qori ku taago wax badan oo macna ma leh annaga haddii ninkan sida uu sheegayo oo ciidanka buuhood la kaligiis oo uu aaminsan ciidan qaran horta kuwii meesha loogu yimid ala dhaafi lahaa ciidan qaran loo dhaafi lahaa ee in ciidan qaran la dhis qaarna hubka laga dhiga banaanka la dhiga qaarna waa la keenay kuwana waa qabiil horta loojigada aan ka duulinay taas waa gabadha su'aasha weydiisay aniga ma dhihin qabaa'il iyo qolqaasa hubkaas gacanta loo gashay hubkaas waa la baxshay waa run waxaan iri meelaha uu tagay iyo gacmaha uu galay lama yaqaano ay kale tiri fariin uu diray waa run fariin waxaan u diray dadka magaalada Muqdisho jooga iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed dadka Muqdisho jooga waxaan rabaa inaan dhaho yaan la idin gaadin dadka Soomaaliyeedna waxaan rabaa dawladda aan dhisanay ma ka shaqeynayso wixii aan u igmanay wax kale ka shaqeynaysaa dawladdu meeshaas naga ma jirtee aan isha ku hayno oo mas'uuliyadda cadaadis aan ku saarno aniga qabyaaladiista ma ahi waxaan rabaa qof Soomaaliyeed oo dawladnimo Soomaaliyeed ee qaran Soomaaliyeed laakiin aniga ma rabo kaaguna waa qurun kayguna waa qaran dadkan ama waa inuu qurun wada noqdo ama waa inuu qaran wada noqdo fariimaha aan diraayana waa fariimo objective ah waa la socotaan dawladdii Soomaaliyeed oo dhisneeday waxay u duntay dawlad shaqadii loogu talagalay ma qabanin ciidankeedii caburin u isticmaashay ciidankeedii ceelasha inay sumayso u isticmaashay ciidankii xoogga dalka loogu talagalay in cadow shisheeye oo difaaca diyuurada dalka loogu garaacay dhibaato la geystay hadduu ciidankaanu dhismaayo tala la wada og yahay iyo agoon waxa la yiraahdaa aan hortooda lagu baraa isha iyadoo lagu haayo in la dhisaa loo baahan yahay oo aanan hadda la siyaasadeynin ama aan la qalluucin aniga waxyaan la qalluucinaan wadaaye nin wax qalluucinaya mar raba maayo